xubno isugu jira aqoon-yahano culimo iyo waxgarad ka soo jeeda beelaha deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda warbaahinta kula hadlay wadanka Sweden ayaa ku baaqay in madaxweynaha cusub ee deegaanka Soomaalidu uu ka howlgalo dagaalka u dhaxeeya beelaha walaalaha ee kala ah Geri iyo Jaarso ee ka socda deegaanka Tulli Guuleed iyo Banka Diidawaaleed isla markaana dagaalkaasi aanu ahayn mid u dhaxeeya Oromo iyo Soomaali balse uu yahay mid u dhaxeeya laba beelood oo Soomaaliyeed bismillah waxaan halkan ku qabanaynaa maanta shir laga soo ururiyay odayaasha culimaadudiinka iyo aqoon-yahanka beelweynta Jaarsa ee ku nool wadanka Sweden oo shirkii aan yeelanay kadib laga soo doortay tiro kooban oo halkan ka bixiya baaq ku socda arrinka dagaalka ka socda ama ka taagan Banka Diidawaaleed arrinkaas aanu halkan kaga hadlaynaa magacaygu waa Yuusuf Xaaji Cabdulaahi Xasan waxaan leenahay dhowr arrimood baan ka hadli doonaa oo ay ugu weyn tahay dagaalka ka socda Banka Diidawaaleed ee bilowgiisii uu ku lug lahaa maamulkii dhibaatada badan u geystay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaana beelweynta Jaarsa iyo dadka ka agdhow magaalada Jigjiga u geystay kii oo maanta markaa horena lagu sheegayay oo la lahaa dagaalkaasi waxa wada oo u dhex yaala Soomaali iyo Oromo oo la ballaarinayay oo laga dhigayay waxaan loo baahnayn xaqiiqdana laga been sheegayay maantana laga been sheegayo oo dagaalkii markii Cabdi Ilay meesha ka baxay halkuu dagaalkii ka joogsan lahaa ama uu iska taagi lahaa dadka Jaarsa la dega ee Geri ay dagaalkii sii wadaan iyaga oo duulaan ku ah in ay maxaan ku raadada dadka shacabka ee beeraleyda ee masaakiinta horena aan taageero u helin maantana aan taageero dhanaba ka haysanin ay weerar ku qaadayaan dagaalkaasi waxa uu sababay dhimasho badan waxa uu sababay barakac badan waxa uu sababay guryo badan in la gubo dhibaatooyin badan oo aan laga soo waaqsan karin buu abuuray dagaalkaas waxaan tusaale kooban u soo qaadanaynaa maalintii u dambeysay ee uu dagaalku ka dhacay Dacawaley oo dadku wada garanayaan oo Ceel Axmar agteeda ah dagaalka halkaa ka dhacay baa niman waaweyn oo cuqaal ah oo odayaal ah oo isku sheegay oo Tulli jooga Tulli Guuleed baa waxay yiraahdeen dagaalkaas Oromo waxay nagu soo qaaday beebeeyo waxay nagu soo qaaday kaarayaal waxay nagu la dagaalantay hub gawaari saaran dadku indhay leeyihiin dhagana way leeyihiin aragti iyo aqoonna way leeyihiin waxaan u daynaynaa ummaddu in ay wax weydiiso ama wax ka ogaado dadka deriska ah dagaalka soo noqnoqday ee waqtiyo badan soo noqday ee Geri iyo Jaarsa dhex yaala waligeedba wuu dhici jiray marka uu dhacana dadku waa deris waa tol iyo xidid waa laga heshiin jiray ama deriska iyaa wax ka qaban jiray waxyaabaha cajaa'ib kale waxa ay noqotay sababta uu dagaalkani u soo noqnoqday marar badan ee uu u joogsan laayay lama sheegin oo ma ay dhicin Jaarsa iyo Samaroon oo dagaalamaya waligeed ma ay dhicin lama sheegin Jaarsa iyo Jidwaaq oo dagaalamaya waligeedna ma ay dhicin lama sheegin Jaarsa iyo Ciise oo dagaalamaya oo deris ah oo dhan walba maxaan ku dhahdaa iska xiga lama sheegin Jaarsa iyo Hawiye lama sheegin Jaarsa iyo Isaaq sababta haddaba keentay in dagaalku Geri iyo Jaarsa dhexdooda ku soo noqnoqdo gaar ahaan Banka Diidawaaleed waa su'aal aad iyo aad loogu baahan yahay la isweydiiyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtana ay aad uga fikirto Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa dhagax waad ku dul socon kartaa laakiin xabad quruuraha oo kabta ku gala kuma socon kartid dhibaato weyn baa halkaa ka taagan dadku waa inay u dhug yeeshaan aad ugu fiirsadaan waxa dhacay haddaanu nahay beelweynta Jaarsa raalli kama nihin dagaalka laga been sheegayo ee loo dhigayo in uu yahay dagaal u dhaxeeya
oromo iyo soomaali ama oromo intay weerar soo qaaday ay gari ku soo qaaday oo ay dhulkeedii ka saarayso oo ay xasuuqayso. dadku indhay leeyihiin, dhagay leeyihiin, wax jira ma aha. waa arrinkaasi aan sal iyo raad toona lahayn. waxaan intaa ku dari lahaa hal qodob oo ah wararka meediyaha laga sii daynayo ee ugu horeyso BBC marka ay dadka wareysanayso. kow marka hore waxa wanaagsan dad isku dhigma oo su'aalaha la weydiinayo aqoon u leh oo ka jawaabi kara marka hore inay wareystaan. marka labaad in waxa jira si xaqiiqa wax looga sheego oo dadka maxaan ku raala wareysanaya aanay noqonin dad dagaal oogayaal ah oo dad kicinaya ama bulsho kicinaya. arrinka dhimashada iyo dhaawaca iyo khasaaraha iyo dhulka la gubayo iyo maxaan ku dhahdaa dadka la dhibaateynayo iyo xoolaha la dhacaya dhan walba way ka jiraan. jaarsa way dhimanaysaa, way dhaawacmaysaa, dhanka kalena dhibaatadu way gaadhaysaa. waxaan ummadda Soomaaliyeed leeyahay, waxaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba ugu baaqayaa waar dhagihiina fura oo indhihiina fura oo dareenkiina fura oo dadka wax weydiiya oo ilaah baan idinku dhaariyay waa laba qabiil oo walaalo ah oo wada dega oo weligoodba soo wada deganaa maantana wada degan siina wada deganaan doona adduunyadu maanta ku dhamaan mayso laguna kala tagi maayo. Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay gardarrada iyo dulmiga ad ku taageeraysaan ninka beybeysanaya maalinta dhibaato ku soo dhacdo beybey oranaya dhibtaas la ii geystay. Soomaaliyeed miyaan la isweydiinaynin inay jaarsa iyaduna dhimanayso, inay jaarsa dhaawacmayso, inaanay maxaan ku dhahdaa iyadana dhibaato gaadhiso? talow iyadu Soomaali ma ahmiya? su-aashaasi waxaan u daynayaa ummadda Soomaaliyeed, dadka dareen kale, dadka islaamka ah xaqu ha shaqeeyo, dadku waxa fahmaan. haddii la yiraahdo xoog iyo xumaan iyo hadal qalafsan iyo qalad baa wax lagu joojini, qalad wax laguma soxo, qalad laguma soxo. waxaan idin leeyahay walaalahay meelad joogtiinba arrinkaas aad iyo aad uga foojignaada, aad iyo aad uga taxadira. dhibaatada taala marka horena waxaa abuuray nin dictator ah oo ummadoo dhan dhibaateeyey oo baabi'iyey. maantana inay hubkiisi iyo hantidiisi u urursaday intay qaataan ay yiraahdeen ummadii masaakiinta ahayd ee si walba loo dhibay, ee si walba loo dhacay, ee magaaladoodii ay joogeen ay u dhasheen, ee ay ab iyo isir u deganaayeen, ee asalka u lahaayeen laga raafay. iyaan maantana ka argoosanayna xeer gaal iyo xeer islaam meel ay ku qoran tahay ma annaan arag mana annaan maqal. ummadda Soomaaliyeedna waa inay dhageysataa, waa inay hadalka u dhug yeelataa, waa inay cadaalad iyo dhaxdhaxaadnimo iyo meel fiican ka joogsataa. warkaa waxaan ku soo gabagabaynay war nabad baa caana macaan, nabad baa caana macaan, nabad wiil dagaal wiil baa ku dhinta ee wiilkuuguma dhasho. dagaal waxa weeyaan waxa lagu raadiyaa waa doqoniimo. inta ay muuqato in la wada hadli karo oo la wada fadhiisan karo oo ilaahay daraadi sida sheekh caalimkii sheegay ilaahay daraadi loo noqon karo oo la wada fadhiisan karo, wax dagaal lagu raadiyaa meesha ma taalo. arrinka ha xumaynina, meel aanu joogin ha gaadhsiinina, dad aan lug ku lahayn oo shaqo ku lahayn ha soo gelinina. ilaah baan idinku dhaarinay Soomaaliya idinkuna wada wax fahma. aad iyo aad baad u mahadsantiin. waxaan u gudbinayaa walaalkay محمد أبو حسن شرمارك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. waxaan maanta halkan iskugu nimidnay sidoo walaalkay Yuusuf sheegay annagoo beelweynta jaarso inaanu ka hadalno maanta dibka ka taagan banka diida waaleed ee agagaarka jigjiga ilaa Tuli Guuleed. sidoo walaalkay sheegay waxaan ku baaqaynaa anagu nabad. dadkan waa dad wada dega, waa dad walaalaa, waa dad wada dhashay, abti isku ah, seedi isku ah. maanta ninkaad wareystaaba ka kale hadday is wareystaan ama hadday wax isweydiiyaan waxba iskuma jiraan. runtii waa waxa aad looga naxo. intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana Allah inoo shaafiyo. laakiin waxaan leenahay dabka ummadda muslimiinta iyo dadkaasi lagu gubayo ee isku dhamaanayaan anagu diyaar baan in la kala gaadho, in dagaalkaasi la joojiyo. caawana diyaar baan nahay, berna diyaar baan nahay. annagoo qurba joogta iyo qaran joogtaydu waxaan ku baaqaynaa leenahay war nabadda ha laga shaqeeyo,
oo dadkan dabka oogayo ilaahay ka cabsido ka joojiya dadka oo dabka joojiya oo nabadda ku baaqa oo inta la isku yimaado ha laga wada hadlo dagaal hore wuu dhacay mar hore wuu dhacay mar labaad buu dhacay laakiin haddana meel laguma kala tagin dadku wada joogaan la kala tagna maayo nabad baana caana macaane nabadda aynu ku baaqno oo nabadda aynu ka wada shaqeyno waxaan baaq u dirayaa dawladda cusub ee maanta u dhalatay ummadda Soomaaliyeed ee degan kilka shanaad waxaan leeyahay dawlad guuleysata oo dhibka iyo wixii soo gaadhay dadka Soomaaliyeed iyo dadyoga kale ee degan gobolka oo dhan ama kilka shanaad kuwii kaafiya ee ka qabtira ee cadaalad ku maamulo Allah idinka dhigo aad baan idinku ducaynaa anagoo qurba joogta waxaan leenahay Allah idinku xiltiro xilku waa dhibin Allah idinku xiltiro waxaan marka baaq u diraynaa oo leenahay dawladda cusub ee ka dhalatay inaad ka dhigataan gacanta koobaad priority inaad samaysaan oo aad ka shaqaysaan nabadgelyada oo aad labada reer ee dhimasho iyo dhaawac iyo barakac ku soo kala gaadhay inaad kala gaadhaan kala qabataan oo sida waliba ugu dhaqsaa badan hadii alla yiraahdo ilaahayna idin la garab qabtay inaad wax uga qabataan ayaan aad idinku baaqaynaa runtii waanan idin ducaynaynaa in idinkana ilaahay idinku xiltiro السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت waxaan ku darayaa jazakumullah maxamed xasan sharmarka si fiican buu hadlay waxaan aad ugu hambalyeeynaa madaxweynuhu talaabadii koowaad ee uu qaaday ee ahayd maalkii iyo warshadihii iyo hoteeladii la burburiyay ee beelweynta jaarsa ay lahayd ee lagu tuntay ee foolxumadu ka dhacday inuu maalintii koowaadba soo arkay oo uu soo eegay aad baan uga mahad celinaynaa waxaan intaa in leeg ka codsanaynaa inuu xooga saaro sida maxamed sheegana priority-ga koowaad ka dhigto in maxaan ku radaa ummaddu nabad ku wada noolaato nabad haddii la helo wax waliba way hagaagayaan dawladdu meel fiican bay gaadhi dadkuna wuu guulaysan ilaahayna ummadda wuu u naxariisanoo barwaaqaa imani marka intaasaan kusoo gabagabaynaya jazaakumullah asalaamu calaykum waraxmatullah bismillah alxamdulillahi kafaa wabihi nastaciin wasala allahuma calaa sayidina wa nabiyina maxamed wala alihi wasaxbi wasalam halkan odayaashu sida fiican ee quruxda badan ay u hadleen baa waxaan ku xoojin lahaa dhiigga qofka muslimka ah dadka walaalaha ah ee islaamka isdilaya hadday tahay mataqaanaa jaarso iyo hadday tahay gariba warkayga ninkii dhageysanayo nabi maxamed baa kula hadlaya ee dhagahaaga u raarici xadiiskan cabdullaahi bin burayda wuxuu warinayaa wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam qatlu lmu'min qofka mu'minka ah oo la dilo ayaa acdamu cinda allahi ilaahay agtiisa uga weyn oo waxaan la qaadi karayn ah min zawaali dunya adduunyada oo dhan oo suusha oo hal aanay ka harin kowkabka aan ku noolnahay oo burbura ilaahay agtiisa waxa kaga weyn qof islaam oo xaqdarro lagu dilo xamiyatul jaahiliyah wixii uu nabigu sala allahu calayhi wasalam dagaalkii aws iyo khasraj ka socday qabiilka ay ku dagaalamayeen ahlu madiina kitaabka qur-aankii markuu u yimid way joojiyeen waar idinkoo kitaabkii qur-aankaas sitee haystilina sunnihii nabi maxamed sala allahu alayhi wasalam idinkoo sitee haystilina dhiiggiina kala baajiya aakhiradiina dib u dhigta oo aakhiradiina waxaad dib ugu dhigataan adigoo qaawan oo qatan ba ilaahay lagu horgeyn wallaanay kaa saareen jaarsaan badbaadinayay wallaanay kaa saareen geri baan badbaadinayay dhiigga aada gasho waa lagu haystaa ka kale ee labadaa qabiil labadaa reer ee isdilaya ka mid ah hadduu kalkata ku nool yahay iyo hadduu australia joogo oo uu raalli ka noqdo wallaahi waxaan idinka digayaa ka wax dilay ee gacantiisa midida ku dhuftay ama rasaas ku dhuftay ayuu la dembi yahay annagu sidaas awgeed baan maanta halkan usoo fadhiisanay beri baan ka nahay walaalahayo waxay diyaar u yihiin kuwa gudaha joogay kuwa dibad joogaba nabadgeliyo hanaloo soo fadhiistaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dartii hanaloogu soo fadhiisto warwajiga ilaahay baan idinku dhaaranaynaa dhiiga joojiya wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu barkad cabdilaahi maxamed home cable t v magaalada stockholm ee waddanka sweden